alle ha u naxariistay abwaan sooraan ismaaciil sugulle maalmo badan ayuu kaa farxiyey dhoola cadayntaadii soo celiyey shucuurtaadana bedelay waana tan uu taageerada kaaga kasbaday maanta tii alle ayaa u timi wuxuu kaaga baahan yahay duco iyo abaalgud abwaan sooraan ismaaciil sugulle ayaa u geeriyooday cudurka COVID-19 kadib toddobaadyo uu ku xanuunsanaa cusbitaalka Burco sida uu xaqiijiyay agaasimaha cusbitaalkaasi Dr. Cabdi Soodi waxay ahayd geeri naxdin leh oo gilgishay qalbiyada ruux walba oo Soomaali ah madaxda qaranka kuwa dowlad goboleedyada siyaasiyiinta mucaaradka bahda fanka saxafiyiinta iyo dadweynaha Soomaaliyeed oo aad u jeclaa riwaayadihiisa majaajilooyinkiisa iyo filimadiisa ayaa ka tacsiyay geerida naxdinta lahayd ee ku timi abwaanka abwaan sooraan oo saaxiib la ahaa Jawaan kaliya lagama aqoon gobolada Somaliland waxa uu ahaa afmaal murtida hibo u helay oo si dabiici ah ugu abuuraa inuu dhowr kalmadood kaaga qosliyo waxa uu ku biiray dadka magacoodu baahay iskuna qoray taariikhda cad ee lama ilaawaanka ah ee bahda fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed alle ha u naxariistee u ducee in Allah jannooyinkiisa uu ku irsaaqo siina faafi warbixintan ka hadlaysa taariikhdiisii quruxda badnayd kuna xidhnow bogga Maxamed Muuse Tarsan.